waxgaradka iyo odayaal dhaqameedyo kasoo kala jeeda deegaanada uu ka harimiya maamulka koonfur galbeed ayaa munaasabad ay ku soo dhaweynayeen Suldaan Xeydar, Suldaan Suufi, Suldaan Muuye waxa ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Suldaanka uu ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa hadda dib ugu soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho isla markaana waxa uu ka mid yahay 135 oday ee soo doortay maamulka koonfur galbeed. Daafurka munaasabada kadib waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay munaasabada iyagoona ku soo dhaweeyay suldaanka xilkii loo igmaday isla markaana looga baahan yahay ay yiraahdeen in wax badan uu qabto maadaama uu yahay suldaanka guud ee beelaha Tunni. asigoo mataqaana howlo badan iyo mataqaana arrimo badan noogu maqnaay annagana gadaashiis inta uu maqnaayno howlo badan aan sii qabno howlo sii wadinay inaan isku aragno aqoon isweydaarsigeennii iyo isalaanteennina aan isalaanno waxaan kaga faa'iideysanayaa suldaankaygii sharafta leh xafladda looga agaasimay aan kaga faa'iideysanayaa inay yimaadaan dadka gobolka Bari Puntland joogaan inay dhulkooda yimaadeen waa nabadgelyo. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baraawo ee dhankeeda meesha ka hadashay ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan suldaanka isla markaana waxa ay xustay inay la shaqeyn doonaan. Waa naga soo daxal sida ay tahay waxa lagaaga baahan yahay dadkii iyo dalkii iyo deegaankii wax dhan ku baahan yihiin. Waxaan u baahanahay maasha Allah hadda waa ku faraxsanahay soo dhaweyntaada oo xafladan qaaliga ah insha Allah xaflado badan aan oo xiga doona saa u maleynaya wax badan insha Allah taala waad sugi doontaa waan laga sugi. Gabagabadii munaasabada waxaa hadalkiisa qaatay Suldaan Xeydar, Suldaan Suufi, Suldaan Muuye oo ah suldaanka guud ee beelaha Tunni isagoo meesha ka hadlayeen hadaladiisa waxaa kamid ahaa shacabka u baahan yihiin ana diyaar ah inaan fuliyo diyaar ahay inaan fuliyo sidaas hala ogaado laakiin war kale oo banaanka war oo waxba qiimo lahayn dhigtayaal haddii wax la arko hanalaga imaado hanala weydiiyo waxaasaan anaga maqalnay waxaasaa jira marka propagandada waa badan yihiin marka yaa la raacin wax propaganda ah marka hala noqdo hala isku duubnaado dadkana kulligood ha isjeclaadaan midnimo maana ayaa wax lagu gaaraa haddii anaga tafarruq nahay wax ma gaari karno marka midnimo howl badan ayaan sugayso howl badan howl ma aha hal iyo laba ma aha waa badan yihiin howlaha marka kulli waxa la rabaa juhdi badan in la geliyo. Fatima Cabduqaadir Xasan TV-ga Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho.